magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar muddo 5 maalmood ah u socday saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalinta badda ee Soomaaliland. tababarkan ayaa ku saabsanaa baaritaanka iyo la socodka dambiyada badaha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta ciidamada ee baarista dambiyada badda. taliyaha ciidamada badda ee Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xiirane oo ka hadlay tababarkan ayaa sheegay ahmiyadda uu leeyahay tababarkani, waxaanu tilmaamay inay sii wadi doonaan tababarada noocan ah ee kor loogu qaadayo tayada iyo aqoonta ciidamada badda ee Soomaaliland. waxay wax bilowna wanaagsan oo ah inaan waqti badan fahno shaqadan baarista wax badan baa xeeray naga luma baarista oo marka hore mar haday lumaan marka dambe wala bilis wala xiraal ay toosin karaan marka waxaan noqonaysaa 15 bilowa wixii dambana insha Allah inuu xiraalintii bilis ka tashanayna ben gacan qaban doonaan waxaan noqon doonaa ciidan team leh baaristoodu mutaqaan dhisa waxaan dacway baaristu waa qof dhisay oo kale oo mataqaana kamciile oo lugiile hadii meel ka maqan tahay waxa uu diiday kiiska waa jabaya marka waxaan leeyahay ilaahay mahadi xaruntii maanta waxaan ku qabsanay xiraalinta ku qabsanay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa xiraaliyaha mataqaana ugu soo dhaweeyay xafiiskan iyo aqoontayna siiyeen insha Allah waxaan noqon doonaa waxa kale oo isaguna munaasabaddan ka hadlay xiriiryaha guud ee qaranka Soomaaliland oo ka warramay ahmiyadda ay leedahay barashada aqoonta dambi baarista gaar ahaan dhinaca dambiyada badaha. waxaanu sheegay inaanay ahayn markii ugu horeysay ee tababar noocan oo kale ah ay u qabtaan ciidamada badda ee Soomaaliland. soo la socono warbixintan kana lagu bixinay xubnahan qaatay dhalinyarada runtii ugu badan aad iyo aad bay uga faa'iideysteen saan warka ku hayno halkana la warbixinta lagaga bixinay oo ahayd inay diyaar u ahaayeen casharadii iyo duruustii halkan laga siiyay inay si fiican u qaataan. waynu ognahay ciidanka badda imika xeerkoogii ciidanka golihii wakiilada waa laga approve gareeyay wuxuu u gudbay golaha guurtida. waxaan jeclahay haddii la yiraahdo inuu dhawaan xeerkaas oo dhammaystiran inuu soo bixi doono si ay xilkooga iyo waajibaadkooga iyo shaqadoodu ay ahaato mid clear ah oo ma garanaysa yani hufan oo ku jahaysan xilka iyo waajibaadka qaranka ay u hayaan. ugu dambeyn waxaa halkaas shahaadooyin lagu guddoonsiiyey saraakiisha ka tirsan ciidamada badda ee Soomaaliland ee loo soo gabagabeeyay tababarkan.